وحلو حجيي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق نف إلهي حرمي ديل كيدنا مدلان ديقكم أحد قدبان إلا إني حق كدليان مويه إلا بالحق داسي waxay tilmaamaysaa xaalaadka istithnaa'iga ah oo shariicadu soo reebtay oo nafta loo dili karo hadday qisaas tahay hadday maalan tahay xad xuduudda ka mid ah hadday muxuu ahaayey nafta loo dili karayo taasay ka hadlaysaa asalku marka waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala fi hadihi al-aaya waxaa la isdaba dhigay shirkigii iyo dilkii xaqdarrada ahaa waa laba dembi oo isdaba yaalla wey أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدا سوكلوي وحديث أبي هريرة في الصحيحين وهذا أي نسور شيئين اجتنبوا السبع الموبقات النبي صلى الله عليه وسلم الشرك محل قدم بيسي رواية حديث كرواية كيسا كمدا شرك وحي كحجسي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نف إلهي حرمي إن الحق دركو ديش نف إلهي دل كذا حرمي إن الحق دركو ديش هاي الشرك كحجسي رواية كلا حديثك waxay ku xijisay shirkiga sixirkana waxay ku xijisay nafsu qatlu nafsi bay ku xijisay laba gooraba sixirka laftiisa nawaaqidul iimaan buu kamid yahay wa nawaaqidul islaam ala raajih oo waxyaalaha gaalnimada keenuu kamid yahay waxa lagu xijiyay nafta dilkeedii baa lagu xijiyay dunuub ilaahay laga galo ama dambi laga galo kuwa ugu waaweyn inay tahay saasaad ku garan waxa kale macnaha tusaya lamaaninta la isku lamaaninayo shirkiga iyo gaalnimada ee la daba dhigayo markaba lagu lamaaninayo la daba dhigayo dilka xaqdarrada ah waxa kamid ah nusuusta kutusaysa xadiisu abi saciid al-khudri ahmed iyo tabarani baa soo saaray waa xadiid xasan ligayrihi wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam yakhruju unuqun min an-naari yatakallam maalinta qiyaamada yaani waxa ka soo baxaya naarta dhexdeeda luqun ayaa soo baxaysa luquntaasi markay soo baxdo naarta dhexdeeda ka soo baxdo ayaa waxay leedahay wakiltu al-yawma bi thalathatin maanta waxa la ii xil saaray oo la ii wakiishay saddex ruux maanta saddex baa la ii xil saaray inaan shaqo ka qabtoon ka shaqeeyo bikulli jabbaarin caniid mid kasta oo qasbid badan dadka baadilka ku qasba isaguna madax adagoon waxba yeelaynin oo waxba ka daadagaynin caniid ahoo ilaahay ka goostay tabaaraka wa tacaala jabbaar ah kaa horta waa midka koobaadee la ii diray inaan shaqo ka qabto ka labaadii waxa weeye waman jacala maca allaahi ilaahan aakhar allah iyo addoommadiisa ciddii wax ka dhexaysiisay oo wixii rabbi gooni u lahaa addoommada u leexiyey oo cidaan ilaahay ahayn baryey tala saartay kaalmo weydiistay wax ka doontay man jacala maca allaahi ilaahan aakhar ama ha noqdo dhagax ama sanam ha noqdo ama geed ha noqdo ama qabri ha noqdo ama wadaad dhintay ha noqdo cid aan alla ahayn ninkii baryey oo wax weydiistayna waa ka labaad ka saddexaad yuu yahay waman qatala nafsan bigayri xaqin ruuxa saddexaad ee la ii xil saaray waa ruuxii naf dilay xaqdarrana ku dilay saddexdaasaa la ii xil saaray bay luquntaasi leedahay naarta ka soo dhex baxday fayantawi calayhim yacni markaasaa intay isku wareejiso luquntiibaa intay saddexdiiba ku wareegto isku duuduubto fayaqdifuhum fii khamaraati jahannam markaasaa naarta jahannama moolkeeda iyo salkeeda ayay saddexdiiba ku daadinaysaa ku tuuraysaa saddexdaasaa la ii xil saaray bay leedahay u fiirsa marka man jacala maca allaahi ilaahan aakhar ayaa lagu xijiyey waxaa lagu xijiyey yacni man qatala nafsan bigayri xaqin axaadiis kaloo macnaha tilmaamaysa way fara badan tahay oo waxaa ka mida maalan xadiid aan u tegi doonno oo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu leeyahay kullu denbin casa allaahu an yakfirah ila arajula yamuutu kaafiran aw irajulu yaqtulu mu'minan yacni waxa mutacamidan dembi kasta alla waa dhaafaa ilaa ruux gaalnimo ku dhintay ama ruux mu'mina xaqdarre intuu ku dilay dhintay labadaa mooyee dembi kale alla waa dhaafaa kii shirkiga ku dhintay iyo kii naf intuu xaqdarre ku dilay ku dhintay labadaasba rabbi isku meel buu nebigu dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo waa laysku lamaaniyey nusuustu marka sidaa weeyo qatlu nnafsi bigayri xaqin qariinatu shirki fii kitaabi illaah
wa fii axaadiisi almustafa salawaatu rabbi wasalaamu calayh shirkigaasaa lagu lamaaniyey. waxaad garan kartaa marka meesha ay taallo oo muxuu ahaayey sida ay culimmadu leeyihiin dembi ilaahay laga galo bacda shirki dembiyada ugu waaweyn bay ka mid tahay. ruuxii marka uun rajo qaba oo aakhiradiisa iyo mustaqbalkiisa wuxuun raja'a ka qabaayey meel uu ku fududaan kara ma aha, hawl uu ku khamaari karana ma aha, hawl uu dunuun iyo mala iyo ismoodsiis iyo waxay ila tahay ku geli karana ma aha, hawl nasacaatu nafsi iyo iskagaday lagu geli karana ma aha. hawl halisa wey. ruuxii aakhira uun rajo ka qaba alle la kulankiisana rajaynayaayey masale uu ku fududaan kara ma aha hawshaa iyadii. sidaa daraaddeed ayaa axaadiis fara badan oo nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrintaasi xooggay saartay. waa la muujiyey arrintu culayska ilaahay agtiisa ay ku leedahay. waxaa ka mid ah axaadiista tilmaamaysa adduunkan oo dhanba inuu ka qaalisan yahay ilaahay agtiisa oo ka qiimo badan yahay ruuxa mu'minka ah. xadiidu baraa ibnu caazib oo uu soo saaray alimaam ibnu maajah, bayhaqi iyo keyrkoodba ay soo saareen, ayaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam lazawaalu ddunyaa ahwanu cala allaahi min qatli mu'minin bigayri xaq. adduunyada oo tiranta oo zuusho oo baaba'da oo meesha ka baxda ayaa ilaahay kala fudud ruux mu'mina in xaqdarro lagu dilo. bal u fiirsada walaalayaal, macnaheedu waxa weeye samada iyo dhulka iyo badaha iyo buuraha iyo geedaha iyo makhluuqaadkanoo baaba'a oo tirma oo meesha ka baxa baa ka fudud ilaahay agtiisa ruux mu'min oo xaqdarro lagu dilo. xadiidkaasi waa xadiis saxiixa. riwaayada bayhaqi waxay leedahay ibnu maajah lazawaalu ddunyaa jamiican ahwanu cala allaahi min damin yusfaku bigayri xaq. adduunyadoo dhammaanteed tiranto oo zuushoo baaba'da ayaa ilaahay korkiisa kaga fudud oo miisaankiisa kaga fudud dhiig xaqdarro lagu daadiyo. xadiidkaa waxaa u markhaati kacayoo shaahid u ah xadiidu cabdillaahi ibni camr ibni caas oo nasaa'i iyo tirmidi ay soo saareen, iyo xadiidu burayda oo isaguna alimaamu nasaa'i iyo bayhaqi ay soo saareen oo isaguna ku yimid lafdiga dhahaya qatlulmu'mini acdamu cinda allaahi min zawaali dunya. mu'minka dilkiisu alla agtiisa waa ka wen yahay adduunyada zuulitaankeeda iyo baabi'iddeeda. xadiidkaasi marka walaalayaal wuxuu tilmaamayaa waana ku filan yahay ruuxii waxoogaa yar qalbigiisa iimaan uu ku jiro, dareenna qaba allah inuu la kulmayana rumaysan, xisaab aakharana rumaysan, diintiisana u naxayo oo u danqanaya, mustaqbalkiisana rajo ka qabaayay. waxaan u malaynayaa nusuustaasi inay ku filan tahay inay ka hor istaagtoy ka celiso inuu ku fududaado dimaada iyo dhiigga dadka muslimiinta ah. bal waxaa sugan lafdi kaleeto oo ziyaada asbahaani uu soo saaray oo xadiidkii baraa ibnu caaziba hadda aan sheegayna ziyaado uu ku daray oo uu nebigu leeyahy sal alla alay wasalam walow anna ahla samaawaatihi wa ahla ardihi ishtarakuu fii dami mu'minin la adkhalahum allahu annaar. samaawaadka makhluuqa ku nool iyo dhulka kuwa ku nool hadday isugu tegi lahaayeenoo wadaagi lahaayeenoo ka wada qayb qaadan lahaayeen ruux mu'mina dhiiggiisa in la daadiyo, dhammaantood ilaahay naartu wada gelin lahaa. la adkhalahum allahu annaar waa fardi weeye, taqdiiran kaba soo qaad. haddii yacni samada waxa jooga iyo dhulka waxa joogaba hal nafa dilkeeda hadday isugu tegi lahaayeen, halkaa naf ay dileen baa kulligood naarta loo wada gelin lahaa. xadiidkaasi waxaa u markhaati kacaya xadiidu abi saciidin alkhudri iyo abu hurayra oo tirmidi uu soo saaray oo isaguna lafdi ku dhow uu ku warinayaa, iyo sidoo kaleeto xadiis kaleeto isagana xadiid abubakra ayaa isagana u markhaati kacaya. marka xadiiskaasi waa xadiis sugan. yacni waxa weeyaan haddii ahlu samaawaadkii ahlul ardigu hal naf dilkeeda hadday ka wada qayb qaataan oo ay wadaagaan oo isugu kaalmeeyaan oy ku kulmaan, naartay ku wada geli lahaayeen. maxaad u malaynaysaa marka hal ruux oo 100 ruux qaba, hal ruux oo 10 qaba, hal ruux oo 10 qaba, bad dhiiga jiidhaya oo aan dan ka lahayn, oo ay koob biyaa inuu cabbayo iyo inuu naf dilahayo, yacni waxa weeye ayba uga fududahayba inuu naf dilo oo dhiig daadiyo. yacni lama aha wax weyn inuu galay ma aha.
khalaa'iq buu jiiray intaasoo naf buu dilay wuu ka qayb qaatay xoolihiisu ku bixiyey fatwuu ku dhiibay sababtii baa lagu dilay gacantii buu leeyahay maca daalika waa qoslahayaa wa ka'anna waxa weeyaan isagoon waxba samaynin oo kale waay shaki wuxuusan ku jirin ruuxaasi iimaankiisaa isweydiin leh li'anna ruuxu markuu iimaan leeyaho qalbigiisa iimaan saxa ku jiro ayuu dembiga uu galay culayskiisa dareemaa sidii xadiidkii nebiga ku sugnaa sal lla lay slam mu'minku markuu dembi galo dembigu siduu ula cuslaanayo wuxuu la mid yahay sidii buur weyn ruux ay korka ka saaran tahay oo ku soo dhacayso oo kale dareenkaasoo kaleu qaadayaa ruuxu markuu iimaan leeyahay dembina uu galo laakiin hadduu munaafiq yahay mujrim yahay yacni waxa weeyaan dembiga ka ugu weyn hadduu galo lama aha daqsi yaroo sanka ka maray oo sidaa uu iska yidhi oo kaleeta iska bitiyey intaasoo kale lama dhannaba marka ruuxa haddaad aragto isagoo dunuubta saa u culusi oo saa u waaweyn fududaysanayoy la fududdahay oo adnaa shubha u gelaya ama shubhala'aanba iska gelayo oo jiidhaya haddaad aragto su'aashu waxay ku noqonaysaa iimaankiisa qalbiga ku jiraayey ayaa ama yacni cadamo waxaan jirin ah ama iimaan aan macno weyn lahayn oo aan muxuu ahay kaamil ahayn oo naaqis ah oo tacbaan ah meesha yaalla sidaa daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala walaalayaal aynu ka baqno oo aynu iska ilaalinno dimaada dadka muslimiinta inaynu wax ku yeelanno xataa walow shatra kelima walow bixarfin yacni waxa weeye kelimo xataa ha ku darsanin dhiig islaam oo xaqdarro lagu daadinayo xoola ha ku darsanin tala ha ku darsanin hadal ha ku yeelanin ka fogow meeshu meel halisa wey meeshu waa meel khatar ah nabigeenna sidoo kale waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidka cabdullaahi ibni camr ibni caas uu tilmaamayo ibn maajah baa soo saaray waana xadiis saxiixun ligayrihi sida uu tilmaamayo sheikhu alalbani caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay cabdullaahi ibni camr ibni caas ra'aytu rasuula allahi sal ly wasalam yatuufu bilkacba nebigaan arkay buu idhi oo kacbada dawaafaya kacbaduu ku wareegaya markaasaa wuxuu leeyahay nebigu sal lay wasalam kacbada markuu tawaafayo maa atyabaki wamaa atyaba riixaki wamaa acdamaki wamaa acdama xurmataki alla kacbay udgoonidaa yaa kaa udgoonba udgoonkaaga cajo badanaa udgoonkaagu oo yacni caraftaadu udgoon badanaa waa la yaab alla weynidaa oo qadarkaagiiyo qiimahaagu weynaa oo xurmadaadu weyni badanaa waaladii nafsu muxammadin biyadihi la xurmatu lmu'mini cinda allaahi acdamu xurmatan minki buu nabi sal ly wasalam kacbadii buu la hadlayaa sidaasi aad u udgoonaatid sidaana xurmadaadu ha u weynaato qadarkaa iyo qiimahaana aad lahaatid laakiin waxaan ku dhaartay allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtee ruuxa mu'minka ah xurmadiisa ayaa ka weyn xurmadaada kacbadii buu sidaa ku leeyay